shirkan jaraa'id wuxuu maanta ku saabsan yahay baaq nabadeed in halkan ka jeediyaan rabaa oon u jeediyo dadka walaalaha oo warar dheer iyo inta ka dhaxaysa ilguulle isku dilaya. waxaan rabaa dadkaasu inay isdilaan, ay naftooda iyo maalkooda isku baabi'iyaan. waxay ku faa'iidayaan ama ay ka faa'iidayaan ma jirto, qolaya qof ka faa'iidaana ma jiro. ilaahayna raalli kama ahan dhiigga islaamka in xaqdarra loo daadiyo. ilaahay raalli kama ahan halaag, ilaahay raalli kama ahan in si arxam darraa la isku dilo. ilaahay raalli kama ahan. ilaahay aana idin abuurtay, qoomkaanad ku dirinaysiin idin keenay. waxaan idiga codsana inanad isdilina. waxaan idiga codsana inanad isdilina. waxaan idiga codsana inanad isdilina. waxaan isleeyahay haddaad isdishiin ood galdarray isku dishaan waa ilaahayna raalli idiga noqon maha oo waa idii caroona. aakharana waxaad kala kulmaysiin lama oga. kiinna in la diriro laysdilo sababaayana mid kastaba ha ahaadee kaasna cadaabaaba u sugnaato. ilaahay saasuu sheegay in dadkaasu isdilaan qofka sababaya ama kooxda sababaysa, kuwaasu adduunkaana sharaf kuma leh, aakharana cadaabay gelayaan. haddaad doqonnimo isku dilaysaan oo uminnimo isku dilaysaan oo adikoo kulligiin waxa la isku dila aan aqoon aad isdilaysaanna dee waa doqonnimo. waa doqonnimo. annagaa idiin sheegaynee waxa idinka khayr badan inan isdilina. haddaanad aduku garanayn inaad isdishiin inay idinka khayr badan tahay inanad isdilina, annagaa idiin sheegaynee inaad isdishiin waxa idinka khayr badan inanad isdilina. aakharadiinnana waxa u fiican inana isdilina, adduunkianna waxa ku fiican inana isdilina. waa yahay odayaasha dhaqanka, waxgaradka, duubabka labadaas qoloo isdilaysa waxaan ka codsana marka hore ilaahay abuurtay ha ka baqaano. marka labaadna dadkaas inay isdilaan wax faa'iidaahu ka soo bixi maane. inay isdilaan waxaa lagu bixinaya inay heshiyaan ha lagu bixiyo. dhiiggii hadda iska galeen ha lagu bixiyo. ha la kala celiyo. inay isla joogaan, ay isdhex maraan, ay isla degaan, ay isla daaqaan, ee isku dhex safraan, ee isku dhex guuraan, ay ceelasha isla cabaan, ay baldaanka isla joogaan, ay iskarabsadaan, ay iswalaashadaan. adduunyada saasaa ugu sharaf fiican. aakharana nin walba ilaahay wuxuu horgeystaa u fiican oo adduunkan ku sameeyo. walaalayaalow waxaan idiga codsana ha isdilina. dilkaas wax badanaan anugu shaksiyan iyo rag ilamiduhu aan isku xilqaannay inaanan la isdilin. anoo wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeelle ah 9 habeen baa yaalay aan jiifay anigoo sooman. rag kale ilaahay raalliha ka noqdee oo saraakiila iyo aniga iyo odayaaluba halkaasaan joogno. anigoo ku soo guulaysanoo ciidankiina kala rarnay, gogol nabadeedna ku baaqnay, soonfur 10kiisana gogoshaas in la dhigo ku ballannay. ilaahay weyna waa og yahay, ummadduna waa og tahay,
inay anagoo soo diyaarinay gowshii wixii lagu jiifa lahaa iyo wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahay iyo ciddii ka hadli lahayd iyo garsoorkii waa la diidey wax sababoo lagu diidana ma jirin oo aniga lay sheega maan ogahay waa la diidey ilaahay baa og ciddii diidday asaala kula xisaabtamaa ummadduna waa og tahay anuu hadda reebelaan diidana malihi 24 habeen baa yaalay iyo maxaasaan jiifay waxaan lahay kaaliya odayaasha labada dhinacoo isku imaada waxaad isku haysatiin oo isku dilaydiin ka warrama si nabada uga wada warrama labada ciidan meesha u dhaxaysaan mar walba degganiin saraakiil ilaahay raallaha ka noqday ciidamo dawladda Soomaaliyeed oo labada dhinac ka yimid oo military iyo aniga halkaasaan jiifnay 24 habeenaan jiifnay maxaas iyo baayaale inta dhaxaysa geedba habeen bagi ka seexanayn intaas waxaan u yeeraynaa odayaasha labadaas reer kaaliya waxaad isku dilaydiin ka wada hadlaan lahayn annaga waxaan idiin samayn karnaa haddaan maamulka nahay ama dawladda nahay waxaan idiin samayn karnaa amniga inaan idiin sugno inta aad ka shaqaynaysiin nabadda waa diideen midba walaxuu sheegay waqti dheer kadib kuwaa loo yimid maalin anaga diyaaraan ahay qoladii kale ha loo yeeray dhaheen qoladii kalena waa imaa weyse waa suurtogeli wayse inay yimaadiin anagana kadib meesha waa ku kala tagnay mugaan kala tagnana laysdili mayn mugaan kala tagnana laysdili mayno iyadoo laysdilaa kama soo tegin ilaahay raalli ha ka noqdeen niman saraakiil ahoo dawladda ah oo labada dhinacu oo labada gobol ka yimid aad ay arrintaas labada marba uga shaqeeyeen inay laysdilnay ka shaqaynaayeen anuguna labada marba waa kala shaqaynaay geedka hoostiisana waa la jiifay qof walba waxay ka qabtana ilaahay agtiisa ugu tegi qof walbo bilaaadanuhu waxay ummaddaas inay isdisho ka qabtay ilaahay agtiisa ugu tegi adduunkaanna dad badanaa ku og oo bilaaadana oo markhaati ahay qof walba wixii qalbigiisa ku jiray iyo wuxuu ku shaqaynayay iyo ujeeddadu lahayna hadduu hadlaayay iyo hadduu meesha joogiyo hadduu maqnaayba ayadana ilaahay aa ogoon waxba laga qari karin waxbana lagala shoori karin waxbana hoos looga dhigi karin waxbana kor loogu dhigi karin markaas ayadaa niman odayaalaha miidiyaha ka hadlaayoo lahaay yuusuf dabageedaa soo duulay yuusuf dabageedaa dadka laaynaya yuusuf dabageedaa dadka isku diraya yuusuf dabageed ciidanka la socdoo dawlad dadka laaynayo anaga la laayay waa lagu soo duuliyey wa qolaa markaas lehed ilaahay agtiis aan ku xisaabtamaynaa ilaahay agtiis aan ku xisaabtamaynaa anigana waxaan ka shaqaynay ilaahay agtiisaan ugu tegi doonaa waxaana si cad u ogahay inaan dhimanaa adduunka waxaan ku sameeyana ilaahay agtiisa aan ugu tegaa si cadaan u oga qof walbow waxaad sheegi sidaas adoo u og sheeg sidaas adoo u og ilaahayna uu kula og yahay sheeg adiga haddaan laftigeeda kii meeshaa laga sheegaayo oo shalay iyo dor haddacay dadaa miidiyaha ka lahaa yuusuf dabageedaa lagu soo duulay oo la dilaa laakiin hadda anuu dagaalkaas ka shaqay maha oo ilaahay igu og raallina kama ihi oo ilaahay a igu og sharafkaygana maahan ina kuwaas
kuwana aan la tago kuwana aan ku duulo ilaahay igu og kulliga hore madaxaano sidaan aniga aaminsanahay adig kasaad rabtiin aaminsanaada laakiin aniga waxaan aaminsanahay labadaas qoloo diriraysa inay isku kaymid yihiin mid walbana xaqiisa leeyahay aniguna aan madax u wadaho dadka u madaxa oo ka soo jeeda labadaas qoys ina ka mid ahayaan aniga aaminsanahay inaan qolo aanan la safnayn oo qolo aanan abaabulayn oo qolo yacni aanan hogaaminayn na anigii ilaahay isla og ilaahay bugiya laga cabsado dagaalkaas la joojiyo dadka odayaasha oo labadaas jifa ka soo jeeda iyo duubabka labadaas jifaahu arintaas ina wiil ku dhita moogiye wiil ku dhalamay arintaas la joojiyo waxaan idiga codsanaa arintaas inaad joojisaan waxaan ka codsanaa duubabka inay arintaas say ku jooji lahayn u istaagaan waxaan ka codsanaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood inay dagaalkaas ay ku jooji lahaayeen oo wiilashaas ay dhaleen ay duubka u sidaan ama odayaasha koofiyada u sida inay isdilaan waxa uga qayroon inay kala baajiyaan dhiigooda ay maslaxad dhex dhigaan maslaxadday iskula joogi lahayn inay dhex dhigaan nin walba oo afka wax ka sheega uurkiisa aan jirina kolba ilaahay waxa afka laga sheegaana waa maqla waxa uurka lagu qarinaana waa maqla waana ogyahay saasa la ogaado walaalayaalo waxaan idiga codsanaa idigu celcelina dagaalkaas joojiya waxaan idigu baaqayna dagaalkaas joojisaan waxaan idigu baaqa wiilashaas inayna isdilin waxaan idigu baaqa wiilashaasu hadday maalin kasta isdilaan kuwa koodaa oo meesha dhaafaa uma jiraan kuwa kastoo ayagaahu meeshay joogayaan kuwa hadday maxaas tagaan waa la soo celinoo gurceelay imaan doonaan kuwana hadday dhuusamareeb tagaan waa la soo celinoo maxaasay tegi doonaan sidaas daraaddeed guul in laysdila aan ahayn oo in dhiig xaqdarraan la gala aan ahayn oo ka imaan doontaa ma jirto dagaalka meesha ka socda waa mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka tuugaynaa in maslaxada alla idin tuso ilaahay waxaan ka tuugaynaa inaad sidaad hadda u waxdiin sida ka qayroon ilaahay idin tuso ilaahay waxaan ka tuugaynaa inaad isdishiin wax ka qayroon in ilaahay idigu bedelaan ilaahay aan idiga tuugaynaa waa mahadsantihiin